ururka midnimada hablaha gobolka Togdheer oo isugu jira qulbashoog iyo qolqolshoog ayaa ku wareejiyay maamulka Cusbitaalka Guud ee gobolka Togdheer 100 sariirood iyo sidoo kale agab kale oo caafimaad ay ugu soo deeqeen ururka midnimada hablaha gobolka Togdheer ugu horeynba waxa ka warbixiyay agabkaasi caafimaad ay soo gaarsiiyeen hablaha ururka midnimada gobolka Togdheer Xaliime Xaaji Yuusuf iyo sidoo kale Nimco Cabdi Abakor oo kamid ah xubnaha ururkaasi waxa weeyaan waxaanu halkan ku gudboonsiinaynaa Cusbitaalka Burco 100 sariirood iyo 100 koodi furaash iyo konton mishiinka yaryar ee lagu cabiro dhiiga waxa soo bixiyay hablaha gobolka Togdheer ee Birmingham way nagu soo rafatay runtii alaabtaasi waxaanu ku talagalnay inay October timaado laakiin xanuunka jira awadeed ayaa maraakiibtii iyo konteenaradii ay delayed sameeyeen reer Burco iyo qurbajoog waxay horta idinka dalbayaan inay u duceysaan oo walaadka ugu duceysaan hablahaas waxay iskugu jiraan qurbajoog iyo qaranjoog kullana waxa kamid ah qaybta maxay qaranjoogta gobolka Togdheer waa 100 sariirood iyo konton xabo oo kiibalaseedka lagu cabiri jiray maxay hayday 100 ka sariirood iyo 100 kooda furaash iyo kontonkaas waxay ugu tala galeen maxay hayday dadkooda maxay hayday beeshinka ah Cusbitaalka Togdheer u soo doontaa maxay hayday inay ka helaan caafimaad ama markay xanuunsan yimaadaan waxa aan u sheegayaa reer Burco in ay midnimo sida groupkaasi xamnaha midnimo ay ku mideysan tahay aan u wada socono qurbajoog iyo qaranjoogba in ay kuwa gobolka joogaana iyagoo gobolka jooga ay u xasuusnaadaan isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Casayl iyo sidoo kale agaasimaha Cusbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim iyo xubno kamid ah gudida horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ayaa uga mahadnaqay ururka midnimada hablaha gobolka Togdheer agabkaasi caafimaad ee ay soo gaarsiiyeen Cusbitaalka Guud ee gobolka Togdheer iyagoona sheegay in deeqdani aanay ahayn tii ugu horeysay balse habluhu ay markasta garab taagan yihiin Cusbitaalka halkan waxaanu mar labaad aynu uga ducaynaynaa hablaha midnimo reer Birmingham annaguna runtii waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu qalabka cusub ee ay noo keeneen inaanu ilaalino runtii waa qalab aad iyo aad u wanaagsan annagana ka codsanay maadaama aanu shariir ugu baahi badnayn maadaama Cusbitaalku sii ballaaranayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hablaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hablaha gobolka Togdheer weligood iyo lahad door xalliga ka jiray dadka ugu badan ee wax soo dira caafimaadka in badan baa la shaqeynay dadka ugu badan ee wax soo dira waa hablaha Cusbitaalku horumar buu ku jiraa imika waa aragtaan waa muuqanayaa haddii sidaa la isugu duubnaadana wax badan baa la qaban karayaa waxaan ku boorinayaa qurbajooga reer Somaliland inay ka qayb galaan siday awalba uga qayb gali jireen horumarka waddanka ka socda reer Birmingham door weyn ay ka ciyaareen wuxuu qabadka gobolkan waxyaabo badan oo Birmingham ka yimi ayaa halkan soo gaaray hablo ambulance hore way keeneen iminkana oo kuwa sariira 100 sariirood inagu wareejinaya qaybta kaliya Burco reer Birmingham baa hirgeliyay marka waxaan leenahay barakallahu lakum fi maalikum wa ahlikum gabagabadiina waxa uu mahadnaqay ururka midnimada hablaha gobolka Togdheer ee iskugu jira qurbajoogta iyo qolqoljoogta gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Daljir aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaah baa mahad leh hablaha inoo keenay deeqdan ku midoobay midnimada gobolka Togdheer qurbajoog iyo qolqoljoogba oo nimca ka mid tahay aad iyo aad waxaan ilaahay uga baryaynaa in deeqda ballaaran aan noo keenteen miisaanka xasanaadka ay idinku daro qofka ku saxda joodariga aa keenteen ajar baa idinka soconaya intii ay joogeen gudiyadan iyo maamulkanu joogay wax badan baa iska bedelay oo arkaysaan laba sano ama sanadii bar ka hor sidoo ahaa iyo sidoo maanta yahay marka waxa qof kasta ku waajiba oo inaga mid ah hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay dadkii gobolka u dhashaba inaynu gacan ku siino cidda ku hawlan hawsha gabagabadiina waxa ay si rasmi ah ugu wareejiyeen xubnaha ururka midnimada hablaha gobolka Togdheer oo ka kooban qurbajoog iyo qolqoljoog agabkaasi Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.